su'aasheena 118aad waxaan ay leedahay sayladan waxaan ay gabadh aan weligeed la guursan nin baa inaga dhaxeeyay xiriir waxaan sugayay in muddo ah kadib uu igu soo laabtay wuxuuna igu yiri haddaan ku guursanayaa kadibna waxa ila dhaxmaray gogol dhaaf wallantiina wuu igaga baxay ninkaas ma habaari kara sense ugu sheega ninka kale ay guursan raba gabadha khaladka ay gashay iyo meesha ay aadayba la yaabay ninka ma habaari kara waxa dhaantay inay tiraahdo ma seenu toobad keena iyo seen u saxay marka su'aashu dhowr farac bay leedahay dhowrkeeda farac marka aan ka jawaabno waa mid koobaad ee horta haddii aan haweenayda la qasbin oon xoog loo sheeganin oo ay zinada ayadu wax ka samaysay ogolaato dembigu labadooda waa ka dhaxeeya liannaha mutaawica barnaamijkay qayb ka tahay waay macnaha hawshay qayb ka tahay cudurdaarna u noqon mayso ballanqaad awaan ku guursanahayaabaan isku halaynaya cudurdaar u noqon mayso zinada taa horta waa midoo waa dembi labadooduba wada galeen oo ka dhaxeeya ninka khaas kuma aha waa midda labaadee in ballanta looga baxabaa sababta keentay waxaa laga yaabaa inay tahay xidhiirkooda ayaa markii horeba khaldanaa xidhiir hufanoo nadiifa ma ahayn sababtu maxaa yahay inay zina dhacdo waxaa ka hormartay inay meel cidlo ah labadooda ku khalwoodeen soo ma ilaan meel lala wada joogo kuma zinaysan karaan marka waxay ogolaatay inay ninka meel cidla la gasho tayib maadaama ay arrintaasi ka horeysay zinada horta taasaa sababtay xidhiirkiinna iyo qaabkaad u wada socoteen baa horta khaldanaa waxaa xigta laga yaaba markii horeba ninku inuu guur kaa damacsanaa oo daacad ah laakiin markuu ku arkay macsiyana aad ku wada dhacdeen inay sabab u noqotay baa dhici karta inuuba isbedelo oo ballantii kaaga baxo maxaa yeelay xataa dadka ilaahay dartii isu jecel oo shahwo iyo adduunyo darteed aan isu jeclayn nebigu wuxuu tilmaamay sal alla alay wasalam laba ilaahay dartii isu jecel ma kala tagaanoo isma nacaan ilaa dembi midkood sameeyey ama ay wada sameeyeen sababtiisa mooye marka dembi aad wax ka gashay ayaa laga yaabaa inuu ballantiiba jabiyey xadiidkaasi waa xadiid sugan oo bukhaari baa soo saaray adabulmufradka sheekh albaanina waa saxiixinaya arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa cudurdaan inayna u lahayn gabadhu ballan baa lahayn iyo xidhiidhka horena inuu khaldanaa khaladkan dambena inay wax ka gashay oy mutaawaco ahayd oon la qasbin wabittaali ninka ma habaari karaa waxaa igu sameeyey dee adaa la sameeyey adigana ha lagu habaaro waay sooma waa isla samaysateen oo waa isla qasateen oo adiguna raalli baad ahayd marka maxaad habaari waay ma ku dulmiyey sax labadiinuba daalimiin baad masaladaas waay sida saxda ay wax weeyaan inay gabadhu toobad keento oo ilaahay u soo laabato tabaaraka wa tacaala isaga iyo iyada iyo kii waxaa sameeyeyba sababta labaad ay dhici karaysa inayba ballanta uga baxay waxa weeye ninka si kastoo uu faasiq u yahay u xun yahay haweenayda marba hadday zinaysato u ogaado inay tahay haweenay zina isaguba ha ka zinaysteen xaasnimo iyo reernimo inta badan uguma talagalo
mas'aladana waa mas'alo u baahan inay gabdhuhu ku baraarugaan xataa ninka faasiqa wuxuu rabaa naag dhowrsoon buu rabaa waradaa kharibay ma iska wadwadad ma ogola mid nadiif u raadinay sooma marka yuusan ku wasakhayn ninkani go'aankiisu qaadan doona yuusan ku wasakhayn waa mas'alo u baahan inay dumarku ku baraarugaan oo marar fara badan ka hoos guurkaasi uu dhacaa waxaan leenahay gabadha toobad keeno ilaahay u toobad keen arinta xigta oo masalada labaad iyo faraca labaad ee meesha ku jira wuxuu yahay mas'alo ka soo bixi karto haweeneyda zaaniyada ee zinada ku dhacday ma la guursan karaa nin aan zaani ahayn oo nadiifa ma guursan karaa waa mas'alo khilaafiya siday u xoog badan tahayna wax weeyaan hadday toobad keento oo dembigii ka toobad keento waa la guursan karaa haddayse weli zinadii iyo wixii qasanayso ayna ka toobad keenin nin muslim oo nadiifa inuu guursado naag zina ku dhex jirta maya mas'alada waa mas'alo khilaafiya laakiin sidaasay u xoog badan tahay faraca saddexaad ee soo hadhay waxa weeye waxay tidhi gabadhu haddii aan nin kale guursan rabo seen ugu sheegaa inay xumaantaasi hore iiga dhacday si kale haddaan u dhigno haweenaydii horey xumaan u samaysay nin kale markay guursanayso ma sharti baa inay tidhaahdo war horey baan u zinaystay ma igu qaadanaysaa mise maya sharti baa laba asal baa masaladaa kala jiidanaya asal waa aslu nasiixa waa cadamu lghish inaad ruuxa walaalkaa u naseexayso si daacadnimo ula dhaqanto waxna aadan u qarinin waa asal usuusha diinta ka mid asalka labaadna waxa weeye ruuxa muslimka hadduu xumaan ku dhaco waa inuu is-asturo oosan isfadeexaynin labadaa asal baa masalada kala jiidanayo culimmadu midba ay labadaa asal bay mid haleeshiiyeen ayib sida taqriiban ila xoog badan waa ra'yiga dhahaya kuma ay qasbana inay u sheegto maadaama ay taa'iba taho dembigii ka soo laabatay attaa'ibu min adambi kaman laa damba lah ruuxa dembiga ka soo noqday isagoon dembi lahayn oo kale uu ka dhigan yahay haddii shuruudii towbada si sax uu la yimaado waa midda labaadee xadiidka nebiga sal lla lay waslam baa tilmaamayo rasuulku wuxuu yidhi man asaaba min hadihi alqaaduraati shay-an falyastatir bisitri illah war qashinkaa iyo zinadaa iyo waxyaalahaasi ruuxii wax ka mida ku dhaca asturka ilaahay hays asturo yuusan isfadeexayn oo dadka isu sheegin hays qariya buu nebigu sal alla lay wasalam waxaa wariyey imaamu malik fi lmuwata tabaraani fi lkabiir xaakim fi lmustadrak bayhaqi fi sunan iyo keyrkiida xadiid sugan wey midda saddexaadii haddii la yidhaahdo haweenay kasta oo zina gashay markay guursanayso dabcan oo toobad keentay waa markay guursanayso nin guursanayso waa inay u sheegto tidhaahdo zina ii horraysaye niyow ma igu guursanaysaa haddii kale way khayaantay haddii la dhaho meeshaa waxaa ka dhalanaysa inaan dumarka khalqad holay u galay ee toobad keenay inayna guur helinba arrintaana waxay dhiiri gelinaysaa inay xumaantii sii wataan soo ma dee nin bay u baahantah haddii la yidhahdo inaad issheegto mooyaane lagu guursan maayo hadday is-sheegtana la guursanaynin soo meeshaasi inay muxuuaha xumaan raadisa maa saas daraaddeed ra'yiga xoogga badan waxa weeye laazim ma aha inay tidhaahdo xumaan baa hore iiga dhacday way isqarin way is-asturi waa hadday taa'ibad ka toobad keentay tahay sidaasay ku guursani inay ninka u sheegto kuma qasbana allahuma culimmadu waxay yidhahdaan haddii ay ninku u guursanayo inay bikro tahay gabadh bikra ah oon horey loogu galmoonin inay tahay hadday sidaa lagu guursanayo waxaa laazima inay u sheegto inayna bikro ahayn waa qasb haddii kale khaa'inad bay noqoni ayib hadduu sii weydiiyo oo yidhaahdo oo bikradaadii maxaa baabi'iyey ya kuma ay qasbana inay u sheegto ama had tidhaahdo niyow mid baa waxoogaa guur aan khaldanayn iyo guursaday guur aan saxsanayn iyo guursaday ama mid baa ay waxoogaa maaragtay iskhudbasiraysanay wuxuun maaragtay qaabun ha uga baxay ya sababka xaqiiqiga oo inay zino ku dhacday oo bakaaradeedii saa ku jirtay inay u sheegto laazim maaha
laakiin waa laazim inay u sheegto inaysan gabadh ahayn waa inaysan u qarinin hadday gabadhnimadeedii dhimatay waa inaynan u qarinin oo aynan isaga dhigin gabadh inay tahay iyadoo aynan gabadh ahayn taa khiyaana ku jirta wallahu aclam